aad baan idin salaamayaa runtii dhamaantiinaba ustaad Fax Ajab saaxiibkeena aad baan u salaamayaa waan uga mahadcelinayaa runtii kulankan qiimaha badan iyo barnaamijkan runtii aad ka soo jiishada u leh inta ka gadaal horta muhiimadda ay leedahay tarbiyada iyo barbaarinta waa sida uu sheegay waa laga dhacsan yahay marka aad u fiiriso nature-ka dadka Soomaaliyeed waxa saa'id ku ah ama yaani 95% la oran karaa qalafsanaan iyo adayg iyo naxariis darro meel walba kan ugu sareeya xil ahaan iyo kan ugu hooseeya iyo bulshada qof walba kamid ahay qalafsanaantaas haysata marka waxa la is oran karaa ama soo la isma oran karo dhibaatada haysata ee faraha badan Soomaalidu iyo jahwareerkan iyo isdilkan iyo isnacaybkan oo dhan waxa ka maqan naxariista faraha badan iyo tarbiyadaas oo jiilba jiil uu soo gudbayay oo still socota waxaan xasuustaa nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabi aqra' min yaabis la xaabis la yiraahdo ayaa la joogay isagoo dhunkanayo wiilkiisa Xuseen bin Ali Xasan ama Xuseen midkood dabeetana wuxuu yiri 10 wiil baan leeyahay waligii maan dhunkan markaasuu yiri la yurham man la yarham ya ilaahay uma naxariisto qofkaan isaga naxariisanaynin marka taas waxay ku tusinaysaa in bulshada bilaan naxariista ay aad arkayso sida isku dhabar jeedaay soo naxariista kama maqna soo tarbiyad laanta ma hayso ta kale hadii muhiimadda inta la eegay tarbiyadii leedahay bulshadiina baahida qabto in intee la eeg baa lagu baraarujin karaa tarbiyada ayaa ka horeysa taxliinta macna dawrkaasi waa la moogan yahay marka kaalin intee la eeg ayaa bulshada qaybaheeda dhan u taala sideese bulshada loogu soo jeedin karaa focuska taa waa qodobka labaad maanta bil munaasaba waan soo koobayahay horta quraanka in la xifdiyo oo ilmaha dhamaan waan jecelnahay waajib ma in quraanka la xifdiyo oo ilmaha la xifdisiyo shariicada islaamka waajib kuma dhigayso qof walba in quraanka xifdiyo waa wanaagsan tahay laakiin de wax uu sunna ah oo wanaagsan in ilmihi lagu ciqaabo ustaadku sheegay oo dhibaato kale ka dhalato waa xaraam maanta waxaan xasuustaa hooyo ayaan goobjoog baan ka ahaa ilma ay dhashay ayaa waxay ku tiri labay ahaayeen waxay ku tiri doofaariyaho mid kamid ah ooyey markaasuu yiri iyadu way iska cafawi way iska tiriyo waa isaga yara dhib badnaa markuu ooyey baa waxay tiri intay noqotay waxay tiri ma ku iraahdaa doofaar baa tahay ma ku dhahaa baan ka wadaa markaasuu yar cabaar bay sabaysay uu soo noqday marka waxaan ka wadnaa doofaariyo waxa ugu yar iyo wax ka xun baan dhahnaa maalin walba marka ilmihiisu ma dhimanayo dambi ahaan waxaan drop out noqday oo dhanna soo taas sababtu ma aha maxaase bulshada guud ahaan qof walba oo bulshada kamid ah la gudboon si mowduucan muhiimadiisa loo siiyo aad u mahadsantii